kulanti wanaagsan daawadayaal waa Fatima Taahir kusoo dhawaada barnaamijkeeni bandhiga Fatuush. Si lamida barnaamijyadeeni hore waxaa toddobaadka martiino ah qof bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda caanka ah isla markaasna aad wada garanaysaan. Waa kuma ayaad isleedihiin qofkaasi? Hagaag aan soo dhaweeyo Cali Aadan Muumin. Cali Aadan Muumin waa saxafi ka mid ah saxaafada Soomaaliyeed isla markaana u soo shaqeeyay warbaahinta kala duwan ee ku hadasha afka Soomaaliga. Cali Aadan kusoo dhawow bandhiga Fatuush. Fatuush aad baad u mahadsan tahay barnaamijka inaan ka qayb galan aadaan ugu faraxsanahay inaad igu soo dhaweysana si la eegan ugu dhawahay ka qayb qaadashadiisana diyaar baan u ahay. Haye waad mahadsan tahay. dadka imikayna daawanaya waxaa suuragal ah qaarkood inay hadda wararkaaga akhrisanayaan oo ayna u baahneen inay bartaan Cali Aadan waa kuma, balse waxaa jira dad aan kugu xirneen. dadkaasi maxaad ku oran lahayd Cali Aadan waa kuma? Cali Aadan Muumin waa qof Soomaaliyeed oo kaalinta bulshada uu kaga jiray ay tahay wartabinta, xirfadeyduna waa miidiyaha ama saxaafadda. sidaa daraadeed waxaan ahay wariye Soomaaliyeed oo kaalinta uu bulshada uga jiray ay tahay soo gudbinta wararka degdega ah, dhacdooyinka iyaga oo maalin walba loo tabinayo sida ay yihiin, halka ay ka dhaceen iyo goorta ay dhaceen. sidaas sheegtayna markii wajigayga la arko ama magacayga la maqlahay waxa la soo xasuusanaya inaan ahay Cali Aadan Muumin. aad baan ugu faraxsanahay. waa hagaag Caliyow, hadda Turkiga ayaad ku nooshahay. Soomaaliya ood ka soo warrami jirtay waad ka soo gurtay. maxay tahay sababta dalkii kaa keentay? sida marar hore aan ka dhawaajiyay dalkaygii Soomaaliya waxyaabahan uga soo tagay waxaa qayb ka ah in naftii dadka in wax loo tabiyo sababtoo ahayd joogitaankeeda adduunyada la isku haystay oo aan kala jeedina nafteyda badbaado u waayay. waxa aan dalkii uga soo tagayna waxay ahayd inaan ka waji bedasho bal ugu yaraan inta ay wax isbedelayaan hadday noqoto maalmo ama sanado iyadoo aanan la joojinin wararkii iyo sidii aan u baahin jiray. isla markaasna ubuucda sababta aan xamar uga soo tagay waxay tahay kaliya inaan maaragtay ku amaan heli waayay oo dawladdii iyo ciidankii ay ahayd in muwaadiniin anigu aan ku jiro amnigooda iyo naftooda ay ilaaliyaan. taas bedelkeeda aniga aan beegsi la kulmayay. sidaas darteed aanan xamar uga soo tagay Fatuushay. si wanaagsan. Soomaaliya intaad joogtay waxaad la kulantay xarig iyo tacadiyo, sidaa hadda sheegtayna handadaado dhinaca nidaamka ayaa jira. Cali, ma jiraan cid si gaar ah cadow kugu ah oo caawa bandhiga Fatuush ka sheegaysid? anigu waxaan u arkaa dadku ma wada xumaa sida caadiga ah, laakiin systemka dowladnimada cidda hogaaminaysa ayaan u arkaa inay tahay halka taladu kasoo bilaabato iyo dadyow kale oo maankooda uusan gaarsiisnayn in wariyuhu uu xaq u leeyahay inuu hadlo, xogna dadka usoo gudbiyo, fasiraadeeduna aysan noqon karin in wariyuhu uu cadow yahay. haddii sida aad su-aashii weydiisay oo loo rabo inaan wax u sheega ay tahay inaan wax u sheegana way jiraan shakhsiyaad inkastoonan hadda doonaynin inaan magac usii sameeyo intaan magacyadooda sheego, laakiin ugu yaraan ilaha ay ka tirsan yihiin aan maaragtay rabaa inaan carabaabo. waxayna kale yihiin laamaha aan maaragtay aan leeyahay targetka way iga dhigeen ama iga dhigteen, sida nabad sugidda qaybo kamid ah oo kale saraakiisheeda. waxaa sidoo kale jira kuwa iyaguna ka tirsan booliiska. sidaas oo kale waxaa khatarta ugu badan iyagana lagala kulmaa ciidamada nafteedana aan maaragtay aan u sheegi karaa, aan kaga hadli karaa ciidamada militariga, gaar ahaan madaxweynaha xilka haya. dad markaas iyagu kuu sheegaya inay maaragtay ku reer yihiin oo inta kusoo wacan kuu hanjabaya iyo wixii lamida, iyagoo aan fahamsiisnayna in wariyuhu waxa uu hadlaya uu ka mid yahay qofkaas isagu rabo markaas inuu ku hanjabo iyo wixii lamida. marka si guud iyo si gaaraba qaybo kala duwan oo ciidamada ah lagu daray. sidaas oo kale maxaa la yiraahdaa qaybo kale oo maaragtay laamaha dawladda ah. marka handadaaduhu ma yara, iyadoo markaana aan si gaar ah shakhsiyaad u doonayn inaan magac dhabo. haddaan mar kale si aanba qaadana waxaa iyagana gooro sii horreysay aan baahiyey dad dawladda ka tirsan oo hubkii ay ahayd in muwaadinka naftiisa lagu ilaaliyo aniga qudhayda lagu handadayay oo muuqaaladoodana baraha bulshada laga arki karo, qudhayduna aan baahiyey. waan gartay.
in ka badan nus milyan Soomaali ah baa kugu xiran waxayna isweydiinayaan 24 saacadood dhacdo kasta oo Cali soo gudbiyo ma mid uu gacantiisa ku soo qorayba mise dad kale oo bogaaga ka shaqeeyo ka caawiyo tabinta wararka ayaa jira. Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaligeedii fool ma dhaqdo. Calina waa bini aadam sida dadku ay noloshooda kale ugu mashquulaan si laag ugu mashquula laakiin nolosheeda mashquulka ugu badan anigu waxaan geliyaa wararka iyo sheekooyinka bogayga laga dhaxlo ama laga akhristo. Si guud warku haddii uu noqdo maalintii in la soo post gareeyo wax ka badan 50 post iyo haddii ay noqoto hal post in la soo qoro ma dhacdo waraanan anigu ogeyn in la soo gudbiyo sababtoo waxay tahay cidda ugu dambeysay ee magaciisa ama maaragtay uu cid saameyn karo markii wax lagu sheegayo waa aniga marka fitarka ugu dambeeya aniga iskala weyna jiraan saaxiibo aan halkan 100% uga mahad celinayo oo wararka igala shaqeeya sidaas daraadeedna kaligay wararka ma soo qoro laakiin waraanan ogeyn bogga ma soo galo intaas ayaan rabaa inaan 100% u sheego dadka bandhiga Fatuush naga daawanaya. Cali markaad bulshada dhex joogto dadka kugu yeeranaan si ay ka mid yihiin Cali Qarax Quute Cali Qarxiye sidee u aragtaa mase ka xanaaqdaan aaneesyadaas adigu markaa Qarax Quute qof ahaan tiraahdo xitaa inaan dhoola cadeeya laga yaabaa taas ku ogaan kartaa inaysan aniga igu haynin wax la yiraahdo maaragtay kurbo muujinaysa in neenasahaas la igu yiraahdo waxaan arkaa markaan jidka maraayo kale laga yaabo in saaxiibaday ila socdaan ama aysan ila socon dad igu yeeraya dad laga yaabo wararka ay sidan u gudbiyo in aysan ra'yi ahaan taageersanayn dad laga yaabo deegaan ahaan iyo Soomaali reeraha ay kala yihiin aawadeed inaysan maaragtay igu taageersanayn ama igu diidayaan marka si guddi si gaara qof icaayo wali waji carale kala ma hortagin taas beddelkeedana farxadan u muujiyaa waxaana kaloo arkay dad baraha bulshada markii ay maaragtay iga soo comment gareynayaan wax sheegiddu ay ku badan tahay markii la kulmaan dholo cadeynaya taas beddelkeedana laga yaabay in mararka qaar ay codsadaan inay sawir ila galaan marka nastahnaantayda qofnimo haddaan aad isku amaano ayaa ii suura gelinaysa in aanan dhag jalaq u siinin in dadku ay waxaan dhibsaday intay yiraahdaan anigu aan dib u arko marka dhowr jeerna waan sheegay haddaad tiraahdo Cali Qarax Quute haddaad tiraahdo qarax la soo booday iyo wax kasta oo qof bini aadan afkiisa ka soo baxay waanigii dhibay haba yaraatay ma jirto. dadka qaar waxay aaminsan yihiin inaad dhinaca mucaaradka ka waranto walow ay jiraan in badan oo ku taageersan Cali adigu ma soo aragtaa inaad tahay wariye dhexdhexaad ah ha anigu waxaan isku arkaa inaan ahay wariye dhexdhexaad ah sababta oo ah madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxaan adeegsadaa sawiradiisa iyada oo wixii uu sheegana isaga aan soo gudbiyo taas beddelkeedana wixii lagu dhaliilayo oo dadka Soomaaliyeed ama dadka siyaasadda isaga kala dhaxayso waxay ku dhaliilayaan aan soo gudbiyo marka kama soo qaado dhanka dadka dawladda taageersan ama hoggaanka dadka haya inay yihiin dadan jirin taas beddelkeeda dad wararkooda micno leeyihiin aan arkaa oo aan soo gudbiyo taasaana cadeyn u ah inaanan ahayn qof dhinac u janjeera dadka ku amaana waxay kugu tilmaamaan inaad tahay saxafi xog ogaal ah Cali adigu ma isu taqaanaa xog ogaal ha sababtu waxay tahay bini aadamka waxa la yiraahdaa hooyooyinku markay suuqa wada aadaan adeeg isku sii soo qaadaan laakiin guriga markii lagu laabto kala karinta lagu kala macaan yahay qofna wixii soo walaaqada qofna wuu shuutay reex marka fahmay eragaas marka waxaan kala jeedaa si kala hadaan u raahdo dadku magaca wariye way wada sheegtaan laakiin qofba sidii u dadaalo ayay ku xiran tahay micno u yeelida xirfadiisa aniguna waan isku arkaa inaan ahay qof heli og xogtana waxaa lagu helaa adigoo dadaala iyo dadka oo aad u run sheegto labadaasna waxay la tahay astaamaheedina iga muuqdaan. Cali marka qarax dhaco waxaa tahay isha kaliya ee laga soo doonto wararka qaraxa dadku waxay isweydiinayaan Cali yaa xogta siiya ma qaraxu sii og yahay ma cid baa si gaar ah ugu waranta mise xog ogaalnimo wareed oo aad wariyaasha dheer tahay waay adiga warka ugu dambeeya aan sii tixraacaya Fatuushay waxaan aaminsanahay waa xog ogaalnimada wax kasta oo dalkaygii ka dhacaya sidaas daraadeed anigu waxaan leeyahay saaxiibo fara badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo deegaan walba oo qof Soomaali ah war uu u baahnaa in la sheego ii jooga sidaa daraadeed aniga kaalintay saaran waxay tahay xaqiijinta warka la ila soo wadaago waxaanan qofka wariyaha ahi marka uu shaqeynayo isagu uu xulashada xaq u leeyahay
inuu kasoo waramo caafimaadka, inuu kasoo waramo ganacsiga horumarkiisa, inuu siyaasadda ku takhasuso, ammaanka iyo wixii lamid ah. taas bedelkeeda marka anigu inaan ammaanka ka hadlo iyo waddankaygii Soomaaliya waxyaabaha ka jira dhibaatooyinka inaan soo gudbiyo haddii aan takhasuskeeda yeeshay isla markaasna aan muujiyay dadaalkeeda ku aadan in waxyaabuhu marka ay dhacaan isla daqiiqadaas ay dadku soo aadaan page-kayga igana barteen. waa dadaal aniga iyo kooxdaydu aan muujinay ee wararka aan kugu soo gudbino farta igu godane la leeyahay cali wax miyo ka ogaa waxba kama ogaan karo. haddaan wax ka ogahay qof aan aqaano iyo qof ila dhashay iyo qof Soomaaliya wax ku noqdo maanan ogolaadeene horaan ka sheegi lahaa. laakiin dhacdadu markay dhacdo waxaan 100% xooga saaraa iyada oo runta laga abaarayo in qofka muwaadinka Soomaaliyeed ee raba inuu waxaas ogaado meesha ay ka dhaceen iyo naftiisa iyo dadkiisa iyo qofku meesha iska ogaa in badbaado ka helaanba in isla markaas aan soo gudbiyaan xooga saaraa. waa tahay Cali, Abriil 3 waxay ku ahayd maalin weyn waxaadna u dabaaldegaysay dhalashada wiilkaaga Axzaab maadaama qoyskaaga ay degan yihiin dalkii adiguna aadan tagi karin. dareen noocay ayeen kuu sameeynaysaa inay maalintaasi kugu timaado? waxaa u maleynayaa su'aaluhu isbedeleen oo waxay isku bedelayaan dhan dareen oo qofka haddii adkaysi kasta oo uu leeyahay ninka ragga ahi haddii dhanka familka laga soo maro waxay la tahay waa meesha ugu dambeysay waaye oo uu wax ka dareemi karo. waa sax in ay adag tahay inaan maaragtay wiilkayga anigu aan dhalay oo 3 Abriil 2019 maalin Arbaca ah dunida kusoo biiray kuna dhashay Muqdisho aanan la qaadan waqtigiisii farxadda isla markaasna ay ahayd in maalintaas isagu dunida uu kusoo biiray inaan farxaddii aan maalintaas helnay aawadeed aan usii weyneeyo. marka waa ka cudur daaranayaa inaanan wiilkayga markaan aanan garab taagnin oo aanan la joogin. laakiin haddana dareenka aabanimo waxaa dareemi karaa iyo kala maqnaashaha qof ubad marka uu dhalo qofkii isagu waalida ama hooyo ama aabo. marka wiilkayga aad baan u jeclahay laakiin isaguna waan aaminsanahay in uu leeyahay caqligayga kale oo uu maaragtay ugu yaraan maalin uu igu cudur daari doono inaan ahay qof dalkiisii laga eriyay oo aan isaga farxad la qaadan karin. laakiin jacaylkaan u qabaa ka baaxad weyn ka maqnaashaha maalintiisa. aad baan ku jeclahay Aaba Axzaab, ilaahay ku barbaariyo. waxaan ku rajeynayaa inaad noqoto qof inta uu nool yahay adduunyada micno ku leh dadkiisana ka dhex muuqda. aad baan ku jeclaa Aabo. ugu dambeyn fariintaad bandhigga Fatuush uga diraysa dhalinyarada Soomaaliyeed maxay tahay? anigu dadka Soomaaliyeed fariinta ugu dambeysay aan u diraya waxay tahay horta waxaan rabaa inaan dhalinyarada la hadlo. la hadalkayga dhalinyarada wuxuu quseeyaa qofka dhalinyarada ahi inuusan u noolaan kaliya inuu wax cuno, wax cabo, seexdo, qorraxdu u soo dhacdo, una soo baxdo. laakiin wax intaas ka weyn uu suuraysto. Cali inaad barato kuma aysan imaanin gurigiisa inuu seexdo, waxna cuno, waxna cabo, seexdana. laakiin waxa ay ku timid inaan dadaalay isla markaasna aan muujiyay rakarooni wax la yiraahdo. anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradu haddii ay dadaalaan oo qof kastaba xirfadda uu hayo uu si dhab ah uga shaqeeyo inuu ka libin keeni karo maalin maalmaha kamidna la leeyahay hebela waxaad sheegay ama hebela halkan maray adigoo micno leh noolow intaad adduunyada joogi lahayd iyadoo aan lagu aqoonin lana ogeyn waxa aad tahay ama wax kugu duugan. dhalinyarada fariintaas aan u diraya. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. daawadayaalkaasi wuxuu ahaa Cali Aadan Muumin oo marti igu ahaa barnaamijkayga bandhigga Fatuush. tani intaan ku kulmi doono barnaamijyo kale waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dalkayga barwaaqo nooga dhigo, bisha Ramadaanna caafimaad iyo bashbash noogu gaarsiiyo, intii abaarta haysan ilaahay inuu ka saaro. fi amaanillah.